maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo ka soo ambabaxay magaalada caabudwaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyo wafdi horkacayay gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacal casir kana koobnaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug soo dhoweynta mas-uuliyiintan waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug kana mid ahaa wafdiga horkacaya gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacal casir ayaa ugu horreyntii la hadlay warbaahinta. waxaan arkayay dastuur la sameeyo la yidhi maxay ahayd shaaciro martuudiyo ilma adeerayaalo waxaas aqbali ma karno. dadka reer galmudug ee shalay maamulkan dhistay waa dad isku diina, waa dad isku dhaqana, waa dad isku afa, waa dad walaala ah. in dastuur lagu kala saarana yeeli ma karno, waxaan yeeli karna ma. qof kasta ee galmudug ka tirsan marka ay rabto inay ama sharci ka hadasho ama shaqo qabato ama ay wax u baxdo marka ay rabto waxaan soo jeedinaynaa dastuurkii galmudug oo la dhistay 11 qabiil oo dhisatay dawladda federaalka ahayd oo aqoonsatay caalamkii aqoonsaday dhabaha sharciga ah oo aynu leenahay aan ku soconaa. gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacal casir ayaa xildhibaanada galmudug waxa ugu baaqay in si degdeg ah ay u soo gaaraan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo. baarlamaankii waxaan ugu baaqayaa reer galmudug hadda waxaa ila socotaa 25 meelahaasna waxay joogtaa galmudug oo degmooyinkooda ayay joogaan. anigoo uga faa'iideysanay meediyaha waxaan rabaa inay shaqadooda u soo xaadiraan xildhibaanadii galmudug inay u soo xaadiraan shaqadoodii iyo xaruntoodii inay u soo xaadiraan si ay u gutaan waajibaadka ay lahaayeen. maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan hadalkii shalay ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan galmudug kuwaas oo sheegay in codka kalsoonida ay kala laabteen gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug cali gacal casir wuxuuna sidoo kale sheegay in weli uu taagan yahay khilaafi ka dhex oloosnaa hoggaanka sare ee galmudug. waxaa hadda maqlaysaana dhacay waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaas wax ka jira inaysan jirin, waxa qof ridi karaan inaysan jirin. qofkana waxaa xeel ka qaadi kara qofka asaga doorta. qofka waxaa xeel ka qaadi kara qofka asaga doorta. qofka waxaa xil looga qaadaa marka heshiis leeyahay doo hadda sanad laga joogana oo galmudug khilaaf soo kala dhex galay madaxdeedii waxaan shaki ku jirin khilaafku waagaas galmudug soo kala dhex galay kala qaybsanaantii in aysan dhammaan ilaa maalinka maanta aan joogno. socdaalka maanta cadaado ay ku soo gaareen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay xildhibaano fadhigooda uu yahay magaalada dhuusamareeb ay sheegeen in codka kalsoonida ay kala laabteen gudoomiyaha